Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Beko waxa la aasaasay 5tii bishii May sanadkii 2014 kadib markii shirkadaha ugu waaweyn ee korontada bixiya gobolka Banaadir awoodooda la mideeyay. Midnimadaas oo keentay in la dhaliyo koronto ku filan dalka oo dhan. Tan iyo aasaasidii shirkadda Beko waxa ay isbeddel weyn ku sameysay qiimaha korontada dalka, iyadoo marba marka ka sii dambeysay hoos u dhigaysay qiimaha korontada dalka oo markii hore ahaa halkii kilowatt $1.2. Beko waxa ay bedeshay qiimahaasi ilaa ay gaarsiisay $0.35, waxaana ay sii wadi doontaa qiimo dhimista ilaa bulshada Soomaaliyeed ay hesho koronto jaban oo qoys waliba uu iibsan karo. Sanadkii 2017 waxa ay Beko soo kordhisay qaab cusub oo koronto dhalin ah, iyadoo markii ugu horreysay dalka keentay koronto laga dhaliyay tamarta cadceedda, taasoo keentay in qiimihii aad hoos loogu dhigo, iyadoo sidoo kale yareysay wasakhowga hawada dhawaaqa matoradana ka dhex saartay magaalada. Marka laga soo tago adeegga korontada ay Beko bixiso, waxa ay bulshada Soomaaliyeed la qaybsatay xaaladaha kala duwan ee dalku soo maray. Waxay ka qayb qaadatay gurmadkii fatahaadaha, gurmadka abaaraha iyo deeqaha kala duwan ee gaarsiisay qoysas ay abaaruhu saameeyeen. Waxa ay sidoo kale ka qayb qaadatay dhismaha wadooyinka. Shirkadda Beko waxa ay mar waliba u taagan tahay yareynta baahiyaha shaqo la'aanta ee bulshada Soomaaliyeed qayb ka mid ah haysata, iyadoo sanad kasta shaqo abuur u samaysa dhalinyarada waxbarata iyo xirfadleyda Soomaaliyeed. Waxa ay sidoo kale shirkaddu u taagan tahay wacyigelinta khataraha ka iman kara korontada iyo sidii looga hortagi karo. Shirkaddu waxa ay sii wadi doontaa dhammaan howlaha ay hadda bulshada u hayso, iyadoo bulshada u ballan qaadaysa in ay sii kordhin doonto. Waxaana qorshaha shirkadda ka mid ah inay adeeggeeda gaarsiiso dalka oo dhan.